muuqaalkan waa taliyaha xabsiga dhexe sare ee guuto maxamed sheekh xirsiile oo mid ka mid ah isbitaalada muqdisho kala soo baxaya bukaan dhaqaatiirta xabsiga dhexe ay sheegeen in xaaladiisa caafimaad aysan waxba ka qaban karin sidaa daraaddeed ay garwaaqsadeen inay keenaan cisbitaalka iminka lagu dabiibayo isagoo adeegsanaya awood ciidan ayuuna gudaha u galay cisbitaalka waa taliya xirsiile oo awood ciidan adeegsanaya gudaha cisbitaalka ayuu ku sugan yahay waxa uu amar ku bixinayaa in laga furo oksijiinta bukaankii halkan la keenay waa arrin u muuqata ku tagrifal awoodeed iyo arrin ka baxsan xuquuqda aadanaha waxaa dib loogu celiyay xabsiga dhexe waxaana la saaray gaari leh astaanta ciidanka asluubta Soomaaliya inkastoo goobta uu ku sugnaa sargaal booliis oo lagu magacaabo Geedi Cadow Ciise oo uu sheegay in taliyaha xabsiga dhexe in xaaladda Xasan Kurtun Calisow ay tahay mid halis ah oo uu ku talin lahaa in xaaladiisa cisbitaalka looga warqabo ama damiin ahaan iyo korjoogtaba looga dhigo haddana ma muuqan fursad uu siiyay Jenaraal Xirsiile dadkii goobta ku sugnaa Jenaraal Xirsiile nin la yiraahdo ayaa ka soo furay oksijiinka asaga ka soo bixiyay isbitaalka xabsiga ayuuna geeyay ilaahu marqaati ka ahaw waad u jeedaan sida wax u socdaan iyo say wax u dhacayaan ninkaas biri ka maalin hadduu u dhinto amarkaas waxaa mas'uuliyadiisa qaadaya ninka la Jenaraal Xirsiile waa arki doontaan gaariga la saari doono waan kugu darayaa waa kaasa gaariga lagu qaadayo aniga ayaa dhahay haleegu xukumo warqadan qora waa geeyay aniga waxa dhahay warqadii ana qoray ana saxiixay ninkan haleegu qoro wuuna iga diiday isbaabuurna saarno waa kaas gaarigiisi ugu dambeyntii 24 saac gudahood ayuu gudaha xabsiga ku geeriyooday marxuum Xasan Kurtun Calisow sida ay xaqiijiyeen eheladiisa isbitaalka markaan geynay ninkii oo mashiinka uu ku xiran yahay oo garaaba oo tacbaana oo mashiinka uu ku xiran yahay uu yimiday wuu ka jarjaray wuu soo qaatay meel qashin oo isaga tuuray ninkii waa dhintay ninkaas wuxuu sameeyay in la qabtaan rabnaa dawladda bagdhawaan ka rabnaa waxaan ka rabnaa mataqaan ninkaas inay xirtaan ka rabnaa inay gaarada ka riftaan ka rabnaa aananka dad uu iska celin karnaa laakiin dawladda aan u soo madigoohaya laakiin dawladda waxa ugu sareeya madaxweyne farmaajo warka uu sheego haya ra'iisul wasaaraha uu sheego Xasan Cali Khayre uu sheego haya baasha warsangeliyaan nahay odayaasha baasha warsangeliyaan ka mid nahay lamadaynaba waxaan rabnaa dhawaan ka rabnaa dawladda ama Jenaraal Xirsiile in mataqaan la xiro oo laga qaado jagadana oo gaadada laga rifo la xirana waa rabnaa dhanka kale ehelada marxuumka ayaa waxa ay sheegeen in aan la aasi doonin marxuumka ilaa uu cadaalad ka helo waxaan halkan ka cadaynaynaa lanaan duugaynin ilaa ninkaas oo xilkiisa iyo garaadadiisa iyo uu ku waay magdhow loo qaateen oo sharci islaamku waafaqsan ilaa nagala siiyo ma la duugayo wixii dhaca oo foolxuma oo meeshaas ka dhacana waxa garbaha saaray dawladda haddayna arrintaas ayna wax ka qaban mana yeeli doono dawladda oo mas'uuliyiinta ay ka yihiin farmaajo iyo Khayre ay mas'uul ay ka yihiin wixii ka dhaca meeshaas inay mas'uuliyadeeda yacni ma taqaana ay ayagu qaadayaan mana yeelayna waan isnaqaanaa annagana wayna yaqaanaan dadkaas waan isnaqaanaa wixii ka dhaca meeshaas ayaga qaadaya haddana waxaan dawladda u sheegaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inaana ninkaas duugeyn Jenaraal Xirsiile iidaa keentay meeshaas dadka ku baabaasho haya haddii wax ka qaban weysana anaka baasha warsangeliyaan lahaa wax waa ka qaban karnaa laakiin dawladdan wax qabad ka suguhayna marxuumkan ayaa ku xukunaa 8 sano oo xabsi ah waxaana uu xabsiga ku jiray 3 sano iyo dhowr bilood